maamulka degmada Garbaharey ee gobolka Gadow ee dalkaasi Soomaaliya ayaa isaguna waxa uu guul ka sheegtay dagaal dhexmaray xarakada al-shabaab iyo ciidamada dawladda Soomaaliya warbixin arintaasi ku saabsan waxa inoo diyaariyay wariye Khadar Cabdirasaaq Maxamed mas'uuliyiinta maamul goboleedka degmada Garbaharey ee gobolka Gadow ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaalo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay deegaano ku yaala duleedka degmadaasi dagaalo ka dhacay deegaano ku yaala duleedka degmadaasi Garbaharey oo uu ku dhexmaray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa xarakada al-shabaab dagaalkani oo la sheegay inuu saacadihii la soo dhaafay ka soconayay deegaanada hoos yimaada degmada Garbaharey ayaa la sheegay inuu yimid kadib markii ay xarakada al-shabaab ay wadada u galeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa dawladda oo marayay deegaano 20 kiiloomitir u jira degmadaasi Garbaharey ee caasimada gobolka Gadow gudoomiyaha degmada Garbaharey Nuur Sheekh Maxamed Buraale ayaa sheegay in dagaaladani goobaha ugu badan ay ka dhaceen ay ka mid tahay deegaanka Qudhacgoog oo ay khasaare baaxad weyn u geysteen sida uu sheegay maleeshiyaadka al-shabaab isaga oo gudoomiyaha degmada Garbaharey saxaafadda u sheegay inay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa deegaankaasi ay khasaare ba'an soo gaarsiiyeen sida uu sheegay kooxda al-shabaab gudoomiyaha degmada Garbaharey waxa uu sheegay in ciidamada dawladda Soomaaliya ay wali howlgal ka wadaan duleedka degmada Garbaharey howlgalkaasi oo ay deegaanka kaga saarayaan maleeshiyaadka al-shabaab gudoomiyaha Garbaharey ma sheegin khasaaraha rasmiga ah ee ciidanka dawladda ka soo gaaray dagaalkaasi balse waxa uu cad in ay sii wadi doonaan howlgalada guulo waaweyn ay ka gaari doonaan mas'uuliyiinta maamulka gobolka Garbaharey ee gobolka Gadow ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaalo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay deegaano ku yaala duleedka degmadaasi Garbaharey oo u dhexmaray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa xarakada al-shabaab dagaalkani ayaa la sheegay inuu saacadihii la soo dhaafay ka soconayay deegaanada hoos yimaada degmada Garbaharey Khadar Cabdirasaaq Maxamed Kalsan TV Hargeysa